anigu sharaftii barbahar shan bandhiga haya anaa ka soo baxayo beherkuuba iga yaal waxaan la ballamahayaahayo bartaan fadhida aydkan soo baxayo iyo baashiyadan jeclaa inay baasana boqorkan ka tuugaya xaflad siyaasiga loo soo agaasimay laguna soo wajinayay difacdii tilmaamay ka qalan bedelatay dugsiga oo saddex barbaarsha ayaa lagu qabtay dugsigaasi waxaana ka soo qaybgalay maamulka deegaanka Bacaaweyn qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka socda jaamacadaha ku yaala gobolka Mudug ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha dugsiga oo saddex barbaarsha Ustaad Jaamac Axmed Muuse wuxuuna ka sheekeeyay aragtida dhow ee dugsiga iyo hanka sare ee dugsiga inaynu soo saarno generation wax yaqaan aqoon leh tayo leh laakiin dufcadda tani waxay nasiib u yeelatay inay ahaato dufcad aasaysa dugsi sare oo barbaarsho la yiraahdo oo ku dhagan dugsiga kan isaga ah banaankaysa insha Allah taala waxay noqonayaan dufcaddii koowaad ee ayagu dugsigaas bilaaba fishinka ama aragtida dheer ee dugsigaanu leeyahay oo kaga aadan bulshadiisa ama magaaladiisa haddii ilaahay nala garab galo waxaanu hiigsanaynaa maanta dugsi sare ee barbaarsho la yiraahdo inay aadeen bari ka maalina qalin jabintooda ka bacdi inaanu u helno jaamacad isla magacaas xambaarsan oo aysan meel kaleba u aadin insha Allah taala geesta kale ardayda wax ka baratay dugsiga barbaarsha ayaa iyaguna dhankooda soo bandhigay aqoontii la baray iyo suugaan ka turjumaysa dugsiga waxbarashadiisa ardayda barbaarshe waan bogaadinayaa midkii baa dhiganaya midkii ayd ka baxaya bisinkaan u hayaa baladkaynu joognay iyo maamulkeena Puntland inta baara ma joogta iyo baalahaas xamar weyne baashiya Axmed Muuse ardaygaad biritaato inta aan balad sheegay wala baafinayaaye oo Puntland gudaheeda bilicdu ku lahaaye. Education plays a great role in the life of everyone to get success and happy. It develops personality and benefits mental and physical transform. اللغة العربية من أقدم اللغات في العالم لها منزلة عظيمة ومكانة رفيعة في قلوب المؤمنين وهي من أشهر اللغات في الكون. sidoo kale injineer Axmed Cabdisaal Maxamed Xarabo oo ku hadlayay afka dugsiga farsamada gacanta gaalkacyo ayaa howlo kooban ka soo jeediyay munaasabada duca qabayaal waxaan qirayaa dugsiga hoose dhexe barbaarsha primary and secondary school inuu saameyn weyn ku leeyahay deegaanka Bacaaweyn oo ah dugsigii aan hore uga baxay 2008kii ama 2008 oo aan jecelnahay haddii aan nahay arday hore uga baxday dugsiga barbaarsha primary and secondary school inaan u qaban doono xaflad ku maamuusi doono maamulka dhanka kale maamulka hoggaanka dugsiga barbaarsha Maxamed Cabdirashiid Jaamac wuxuu sheegay in dugsiga barbaarsha uu diyaariyay ardayda ka qalin bedelanaysa sanadkan dugsiga sare ee barbaarsha markay dhameeyaan fasalka 8aad iskoolka hoose dhexe ee barbaarsha wuxuu u diyaariyay hooygii ay ku qaadan lahaayeen dugsiga sare 4 sano soo socota insha Allah waxaan u rajaynayaa inay dhigtaan oo wadaan dugsiga sare ee barbaarsha ugu dambeyntii gudoomiyaha hoggaanka deegaanka Bacaaweyn ee degmada Gaalkacyo Cabdiweli Maxamuud Dalmar ayaa munaasabadan soo xuray laga hadlo iskuulka barbaarsha waxaan rabaa inaan wax iskor taago iskuulada Bacaaweyn kuwa ugu ahmiyadda roon yahay buu ku jiraa waayo waxaa lagu tiriyaa iskuulada aan aqoonuhu dhigtaan ama dadka danyarta soo aadaan ama maxaan ku yiraahdaa arday badan oo lacag la'aan ay dhigtaan dugsiga barbaarsha ayaa ardayda ka baxday inta uu jiray waxay xilka ka hayaan Puntland iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya waan dugsi si weyn wax looga barto Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile.